aniga tiriga xasan xamduliye dhulkan dhul aanu ka doolay aanu ka tagnay aanu bariya ka maqnayn buu 3 sanadood maanan digin xulana ugu may soo haynin sababtu maxay tahay markaa sababta ay uga gurnay wax way abaar maxaan ku dhahay sar cabdaraan biyalaha naga jabay oo naga xaga naga maray maxaan ku dhahay de waxyaabo badan marka maxay isbedelay waxa isbedelay horta biyo wana loo soo xidho wana loo soo hagaajiyay dhirti sarciina wana loo beerayo maxaan ku dhahay waa taas oo ka noo hawray de dad baa ilaahay noo soo diray alxamdulillaah rabbil caalamiin waan ugu mahadnaqaynaa waa ka noo baxay xooli way noo soo xiroodan way noo joogan maxaan ku dhahay waa kaas ilaahay waa ka de noo saara arkaysan marka sarcan meesha ka baan xus ku jira waxyaabo isku jira garab uu badan yahay imikana waxaan rajaynaynaa waxyaabo kale ku dardarno digray rabkhiyay maxaan ku dhahay wixii kale de saliid wixii kale lagu soo daro awski wasna waxaan ku dhahay naga maqano meel nooga baxay isaguna imikoo biyaha noo gaadhay marka de waan u mahadnaqaynaa hay'adihii iyo dawladihii iyo dadkii iyo wasaaradda xanaanada iyo wixii marka xigana waxa mahad leh wasaaradda xanaanada xoolaha ee uu ka yahay wasiirka Siciid Sulub ilaahay mahad leh alxamdulillaah rabbil caalamiin de dhulkan markii hore dhul as oo abaara ayuu ahaa biyuuna ay de ka beersan yihiin aanay ka jaban yihiin saakana waa aragtaa sidoo waqtiga grimka haddii calafkii xoolaha tahay haddii calafkii dadka tahay labadiiba de waa aragtaa kii calafkii xoolaha iyo calafkii dadkaba grimka iyo quruxda ay leedahay de wasaaradda xanaanada xoolaha iyo sanduuqa horumarinta ee Soomaaliland ee SDF ayaa maalgelisay dooxadan iyo dooxadan calaf ka baxay ka dadka iyo ka xoolaha iyo dooxa biyaha soo qaadaba sanduuqa horumarinta ee Soomaaliland SDF baa maalgelisay waxaan ka beeray haruurkii waan ka beeray sisintina waa beeray xabxabkii waan beeray oo isaga waa soo tusdoon halkan buu ka beeray galeedu waa beerantay calaftada iyo calaf xoolaadba waa beeray ilaahayna waa nagu guuleeyay ma sha Allah waa aragtaa de quruxda iyo waa mahad ilaahay baan ugu mahad celinaa ilaahay iyo wasaaradda nagu caawisay waxaan noo maalgelisay waan ugu mahad celinaa insha Allah taniyo markii hore meeshaba waa nacno waxay haydba burcaas abaara imikana waa adiga arkaya daba dhulka greenka haruurkii waanu beeray imika wuxuu marayaa fadhi qaris wax la yiraahdo maraya fadhimka dad fadhiisada dad fadhigaaga uu qarinaya mar wuxuu soo noqday arra qaris buuha habeen ka dambeysay waxba ku kordhaya imika markuu 40 habeen gaadana uu dhalaya uu dhalistiisa wax yar ba ka haraya horta qaabka ay lahaan jirtay deer run ahaantii waxay ahayd gigi cilla oo laga guurayo abaara oo obas ah waliba dad waxay ahayd waliba ka sii xag jirtay oo obas laga guuray ay ahayd oo ummaduba ka qanacday de sawiradeediina hadii loo baahdo waa la helayaa beriga hore oo soo noolaatay muddo imanka laga joogo ilaa dhowr iyo 10 sanadood meeshaas ka guureenba mashruucan horta dadka badankiisa hore wanaga hor yimaadeen ilaa xalaytadaas ay wax fahmayeen oo ugu dambeysay oo nolhay waxa la idin siinaya shinidii calafkii kale galeedu ku jirtay digirtu ku jirtay markaas waxaan ku nolay intii berigii hore codsatay markaan idin yeerin waxay dhaadeen wax kale aanu fahamsanin beeraha la idin ka qaadaya dawlad baa idin ku soo duushay waxba la idin qaban maayo dadka la idin ka jibinaya baan lahayn laakiin maanta alxamdulillaah rabbil caalamiin dadweynaha si wanaagsan bay uga faa'iideysteen mashruucaasina uu guuleystay 90% boqolkiiba 80 ma odhan kara uu guuleystay mashruucaasi waxaana ka soo gooy karaa ma sardaalkan in laga caawin karo sidii Ukraine hadhurka 400 hektaar imika weeyaan inta qodani qodaalkeeda gabagaba siiyahay waa imaal gelinaysa SDF wasaaradda xanaanada xoolaha ay fulinaysaa hawshaasi run ahaantiina waxa meesha isku jira waxa weeyaan calafkii xoolaha iyo kii dadkooda garowgaas waa calaf dad oo digir baa ku jirta oo galey baa ku jirta cawskii ayaa isaguna jira oo nooc walba leh oo imika beeraha hoose aad aragto geedaha laga guraya oo geedo hadii abaar dhacdo lagu baxsan karo run ahaantii waxaan halka arkaa inay muhiimadaasi iyo fikirkaasi cidii lahayd ay ku guuleysatay
Soomaaliland wax badan ay ka tari karto run ahaantii haddaan nahay maamul ahaanna waxaanu ku talagalaynaa inaan dhigno kayd lagaga baxsado xilliga abaaraha oo ay si ay u midho dhasho waanaanu ka tashanay inaanu geedaha calafka xoolaha oo balkan oo noqonaya calafkii xoolaha mishiinadii la hayo aanu bedelo intuu goorgoor yahay si hadhowtole wasaaraddu ay noogu baxsato oo la yidhaahdo halkaasi haddii abaar ka dhacdo gobolka waxaa lagu calafkii xaaxi ka soo go'ay ee lagu baxsanaya si ay midho dhal u noqoto run ahaantiina waxaan u sheegayaa SDF oo maalgelinaysay wasaaradda xanaanada xoolaha in hawshaasi guulaysatay anigoo ku hadlaya afkii deegaanka xaaxi iyo ummadda beeraleyda xaaxi inkastoo beeruhu ay naga go'een oo dhari ka dhex baxday oo aanay sidii sarfeyga ahayd u beernay quruxda badnayd run ahaantii haddana 400 hektarba imika waa hayro kala horeeyo laakiin waa wada sidaa